soo dhawaada hawshan qiimaha badan wararka ugu dambeeya aad maqli doontaan. Waddamadii carabta waxay qarka u saaran yihiin in ay si buuxda ay isugu dhiibaan wadamada reer galbeedka. hadeertana si hordhaca iyo wadamada reer galbeedka isugu dhiibeen. tanina waa mid muujinaysa mar kale in dhabarjab aad u xooggan oo dhinaca hogaankooda iyo mowqif la-aantoodaba uu soo wajahday. waana arrimo kale oo mar kale niyadda ka jabinaya dadka shacabka caalami carabi oo iyagu aad iyo aad uga xanaaqsan sida wax soconaya sii socda horta duqeymaha Iiraan ay ka geysanayso wadamada caalami carabi oo dhan. saldhigyada ay u geysanayso markaasi burburka aadka u xoogganna waxay ku adkeysanaysaa in ay yihiin kuwa Mareykanka. waxayna leedahay wadamadaasi waa kuwa noo soo hoosaasiyey cadowga islamarkaana waxa ay mar walba Iiraan ay dhinac wadaa arrimo waanooyin ah. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiiro kalena waxay ciidamada u sitaan inay daqiiqad kasta ay la xidhiidhaan wadamada caalamka oo ay u sheegaan wadamada carabta iyo warbaahintooda iyo dunida oo kale oo dhan warbaahinta caalamka oo dhan ay u sheegaan ku celceliyaan inaysan ayagu ahayn cadow carabeed laakiinse ay la dagaalamayaan cadow carabta la jooga. taasna ay tahay in la fahmo. wasiirka wasaaradda amuraha dibadda dalka Iiraan ayaa ugu dambeeyey oo koriga hoos ula hadlay wadamada caalamka carabi una sheegay inay yihiin dad walaalaha. sidaa daraaddeed haddii ay ku guuleysan waayeen in ay iska celiyaan iyaga oo iska kiciyaan cadowga wadamadooda kaga soo duulaya ee uu dhibaatada u keenay inay Iiraan u gacan baneeyaan taas. haddaba waxaa soo badanaya dalabaadka wadamada carabta ay u dirsanayaan iyo qayladhaanta dalalka ay ka mid ka tahay Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo wadamada kale reer galbeedka kuwaas ay weydiisanayaan garab iyo gaashaan. markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka loo yaqaano Faransiiska wuxuu ku dhawaaqay in ay ka howlgaleen diyaaradihii ugu horreeyena ay u direen oo dagaalamaya in ay caawiyaan xukuumadda ay isugu dhow yihiin gobolka bariga dhexe oo ah tan ay ka wada qiraabtaan dalab wadamada caalamka islaamka ee dhibaatada ay weyn ay u geystirtay isku tag imaaraadka carabta sida Liibiya iyo Suudaan oo kale oo ay masaka yihiin gabadfalada iyo dambiyada dagaal ee halkaasi ka galeen oo Faransiisku uu yahay waddanka kaliya reer galbeeda ee dambiyada dalka isku tag imaaraadka carabta ku taageera ee wadamada caalamka gaar ahaan kuwa lagu sii lugooriyo. wasiirka amuraha dibadda dalkaasi haddaba oo layidhahda Jean Prat ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha Rafale waa diyaaradihii horey ay u fashilisay dowladda dalkaasi Pakistan ay burburisay dagaalkii May hore in ay burburiyeen ay yiraahdeen dhowr xarumood ay yiraahdeen oo dhowr waxay yiraahdeen duulimaad oo diyaaradaha oo xarumo kala duwan oo isku tag imaaraadka carabta ku soo socday gaar ahaan magaalada Abu Dhabi ayagoo sheegay in ciidamada Faransiiska ee halkaasi joogay ay ka hortageen taas. tan haddaba waxay muujinaysaa waddan kasta oo reer galbeeda xataa kuwa reer galbeedka ugu awoodda yar sida Australia iyo New Zealand iyo wadamada maarta reer galbeedka ugu awoodda yar Belgium iyo xataa carabta ciidan baa ka joogay oo ciidamo ayaga wadamada carabta aynu aragnaba waa wadamo la haysto maba aha wadamo xor ah maaha. wadamada Australia iyo waa maato iyo wadamada loo yaqaano New Zealand iyo Belgium iyo bal wadamo noocaas oo kale ah ayaa ciidan yiraahda annaga ilaalidana ayay dalalka carabta ayay joogaan oo saldhigi ku leeyihiin. maxaa wadamada carabta markaa ka dhigay meel markaasi la iskaga soo dhadiiqiyo. tan waxay muujinaysaa markaa sida wadamada carabta xaalkooda uu yahay. waxay kaloo kuwa caddeynaysaa mowqifaadka wadamada carabta gebi ahaanba in ay tahay mid aad iyo aad iyo aad iyo aad ee markaasi u liita oysan mowqifka sababtay u qaadan waayeen dagaalkan oo geli waayeen. haddaba hadeerto waxa ay si toosa isugu dhiibeen ciidamadan maxamiyadda ay u yihiin wadamada maxamiyadda ka dhigay ee haysta lama ana odhan karo wadamada caalam carabi xataa iska daa siyaasad ahaane xataa dhul ahaan ay xoriyeen xaqiiqatan lama odhan karo. laajiga waxa weeye ma aysan qaadin wax talaba. dhanka kale haddaba ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iiraan ayaa la sheegay inay dhaqdhaqaaq dhinaca dhulka markii ugu horeysay ay sameeyeen. wararka ayaa xaqiijinaya in ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan la sheegay in cutubiyadii ugu dambeeyay dhinaca dhulka ay ku dhaqaajiyeen xuduudda waddanka Ciraaq ee la wadaagto Iiraan halkaasoo la sheegay in kumanaan iyo kumanaan ciidanka qalabka sida loo jeeday si markaasi loogu diyaar garoobo dagaalku hadduu isku bedelo dhinaca dhulka. wararka qaarkood ayaa sheegaya inay sidoo kale suurtagal tahay in ciidanka qalabka sida waddanka ilaalada kacaanka waddankaasi ay diyaar u yihiin baa layidhi in ay galaan waddanka Ciraaq ayadoo taasina cirka ugu sii shareerayso in ay dowladda Iiraan ay doonayso qiila ka dhaweysay in ciidamada Mareykanka ay ka xoreyso baa layidhi ama ay kula dagaalanto gudaha Ciraaq. warar dhaca ayaa xaqiijinaya in ay tani timid kadib markii la ogaaday in dowladda Mareykanku ay ka fakarayso dhaqdhaqaaq ku saabsan inay ku qaado hubeyso dhaqdhaqaaqa ururka Kurdiyiinta ee dhulkaasi jooga iyo dadka markaasi Iiraaniinta Kurdiyiinta oo ay doonayso maalmihii ugu dambeeyay inay kula xidhiidho ayaa layidhi isgaarsiino u gaara dalka Mareykanka.
hay-adda CIA dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay xaqiijisay xidhitaanka isgaarsiin toosa iyo wadahadallo u dhexeyn kara ayaa la dhaqdhaqaaqayaasha Kurdiyiinta iyo sidoo kale dadka deegaanadaasi degan. Kurdiyiinta wadanka Iiraan deganay lama dagaalamaan dowladda Iiraan, isla markaana inkastay cururqaysan yihiin oo ay qabaan utinta ay dhammaantood ku wada tabanayaan wadamada caalami islaam, haddana ma jirto kooxo hubaysan oo si rasmi ah u weyn oo halkaasi ka jira marka laga reebo kooxo yar telteela. Haddii ay ciidanka ilaalada kacaanka wadankaasi dhinaca Ciraaqi gudaha u galaan, taas waxay ka dhigan tahay in ay isku dhex milmi karaan ayaa la yidhi ciraaqiyiinta ee shiicada ah ee tarabeelka kuwaasoo iyaguna cilcunsan ayaa la yidhi inay la dagaalamaan. waxaa ka hadhay ciidanka Mareykanka ee Ciraaq ku sugan. tani waxay noqon kartaa tallaabo kale oo dowladda dalka Iiraan haddaba ay ku jaladay mowqifka dagaalka, isla markaana ay ku jahaysay in kaalmo muhiim ah dagaalka la geliyo, isla markaana dagaalku uu isku bedelo dagaal goboleed sidii uu ballan qaaday ayatolihii laqmaday wadankaasi Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. waxayna tan u eg tahay in ay marba marka dambaysa ay keeni karto fariimo waaweyn oo culculus oo muujinaya in Iiraan dagaalka uu ka dhab yahay, haddii uu dheeldheel ka yahay Mareykan iyo Donald Trump oo ugu wixiisu ay tahay dhinaca cirka iyo badda uunba wax ka cadaadini. laakiinse dowladda Iiraan ayaa doonaysa inay casharo iyo weliba taariikho kale ay xaraadho bay dadka qaarkood yiraahdeen hadday ka dhabaysatan. waxaa la sheegay in ciidanka cirka ee ilaalada kacaanka wadanka Iiraan sidoo kalena la sheegay in qaar ka mid ah qalabkooda ay aad u xoojiyeen, isla markaana ay u jiideen halkaasi. dowladda dalka Canada ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in gebi ahaanba dagaalada hadeerta soconaya aysan hayn dagaalo dhinaca sharciga caalamiga u ogol yahay. Mark Carney oo ah ra'iisul wasaaraha wadanka Canada ayaa sheegay in ay muuqato in dagaalkan uu sharci darro aaday, sidaa daraaddeedna waxa uu ku baaqay in nabad la sameeyo. wuxuuna sheegayaa in shuruucda ay u egtahay in la jebiyey. waxay u egtahay ayuu yidhi gebi ahaanba inay sheekadu tahay prima facie, taasoo macnaheedu ay tahay gebi ahaanba aniga waxaan sameyn karaa sameyna, ama waxaan ay dadka loo yaqaano ereygan runtii wuxuu ka wadaa inuu yahay jiifyaano bannaan. waa ereygaas af Soomaali ahaan lagu martay lagu fasirtaa, ama prima facie waa erey marka Spanish ah oo inta badan la isticmaalo sida erayadan persona non grata oo kala baa jira, erayo la Ingiriisiyeeyaa jira. sidaa daraaddeed waxa weeye buu yidhi arrinta waxay u eg tahay in ay noqoto ayuu yidhi jiifyaano bannaan, oo arrintu ay tahay annaga ayaa tan isticmaalana, isagoo ka digayey inay tallaabadana aysan hayn haba yaraatee mid muujinaysa sharciga caalamiga in ay raacsan yahay ama uu qaabilsan yahay, ayadoo dhanka kalena ay jirto in ay sii wadi doonto Israel ayaa la yidhi inay dugaar iyo weerceliska ay isku dhufanayaan iyaga Iiraan ay midda kale ay hoga tusaaleenayso. ciidamada qalabka sida wadanka Iiraan ayaa la sheegay in sidoo kale ay hub iyo saanad aad u xooggan ay ku dhawaaqeen in ay ka fuliyeen gudaha magaalada Tel Aviv, iyadoo Iiraan ay dhinaca kale ay sheegayso in ay hubka u noqon doono mid aad u weyn, laakiinse Israel ayaa sheegaysa inay bartilmaameedyo aad u xooggan ay qaadi doonto. diyaaradda Qatar Airways ayaa markale xaqiijisay in dhammaanba duulimaadyada dunida oo dhan uu kala go'ay, isla markaana ay sii wadi doonto waxa ay ugu yeedhay duulimaadyada ilaa iyo inta laga helayo xal kama dambaysa. hay-adda Qatar Civil Aviation Authority ayaa sheegtay inay kumanaan kun oo qof weli ay ku xayiran yihiin gudaha wadankeeda, halkaasoo ay dadku ay ka jirinayaan meel uun inay uga baxaan, xilli Qatar xaaladeeda dhinaca amniguna ay sii xumaatay. sidoo kalena ay u muuqato in ay Qatar ay leedahay ciidamada iyada loo tababaray dhinaca difaaca ayaa qayb ka ah. haddaba isku soo wada duuduubo arrimaha ugu waaweyn ayaa ah ee ugu darani in wadamadii caalam carabi ilaa hadeerta aysan tala gacanta ugu jirin, xaaladoodana ay tahay mid sii dirsanaysa. haddii dagaalka dhinaca dhulka Iiraan ay u wadasho oo u jaladana, sheekadu waxay noqonaysaa baraka male. sababtoo ah waxaa la hubaa in ciidamada qalabka sida wadankaasi Ciraaq aysan la dagaalami doonin kuwa Iiraan, oo isla markaana iska badayna la dagaalamaan ay ku kala jabi doonaan xitaa, oo ay badankoodu ay raaci doonaan ayaa la yidhi Iiraaniyiinta. sababtoo ah dowladihii kala dambeeyey Ciraaq waxay dhisayeen ciidamo markaasi u badan ama aqlabiyadooda oo dhan ay yihiin shiico, sababtoo ah maadaama shiicadu wadanka ay qabsatay, waxaana lagu yaqaanaa dadka markii hore awoodda isku maleeya ama cuqdada awoodda u qabay yiraahda moogtay waana la dhibaatay jiray, markay awoodda qabsadaan si qabyaalad leh bay awoodda u boobaan oo ugu haliilaan. sidaa daraaddeedna shiicooyinka kala dameeyey ra'iisul-wasaarayaasha ahaayeen wadanka markii Islaam Xuseen laga qaaday, waxay awoodda wixii maleeshiyaad iyo ciidan ay dhisayeen oo dhan shiicay ahaayeen. laakiinse maanta ayaa la arkayaa in Maraykankii shiicada dhistay uu gebi ahaanba uu arki doono wax loogu tilmaamayo xildhibaanayaashu ay sheegayeen inay tahay hal mar inay isjallado, waxaana khatar ku jira lagu leeyahay markaa mas-uuliyiinta iyo xataa madaxda dalka Maraykanka ee Ciraaq jooga. bal aan eegno wararka daawashan warar falanqayn xogaha ugu dambeeya xaqiiqooyinka fahamka heerka sare ee wararka diblomaasiyadda caalamka iyo weliba dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida, dalalkaas sii kala fogaanaya iyo kuwa isku soo dhawaanaya. hoygan ugu ballaaran ee warbaahinta Soomaaliyeed ee afkeena hooyo, fadlan nagu soo fiir, isla markaana nala daadihi adiguna gaarsii asxaabteena si ay iyaguna uga faa'iidaystaan
barnaamijyada iyo wararka tabinta heerka sare ee halkan aad kula wadaagno waa mahadsantihiin